maalin wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida oo aad kala socotaan Haga Media. Qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah qorshe kale oo dagaal oo lagu soo qabanayo musharaxiin taliyayaal iyo xildhibaano mucaarad ah oo madaxweyne Farmaajo uu qalinka ku duugay. ciidamadii lagu soo tababaray Eritrea oo laga soo dejiyay Muqdisho iyo xiisadda caasimadda oo wiji cusub yeelatay. diyaarado duulimaadyo caalami ah ku imaan jiray Muqdisho oo gabi ahaanba duulimaadyadooda joojiyay. guuldarada mucaaradka oo lagu sifeeyay istiraatiijiyad xumo military iyo mid siyaasadeed oo ay ku dhaqaaqeen. iyo ex-wasiir Goodax Barre oo sheegay madaxweyne Farmaajo in maxkamad military lala tiigsan karo marka la eego wixii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. waa maalinimo Sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 20 bisha Febraayo sanadka 2021. warkii oo dhan aynu ku horeynay xoga soo baxaya ayaa waxa ay muujinayaan in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qalinka ku duugay in mar kale weerar lagu ekeeyo qaar ka mid ah xarumaha ay ka duulaan musharaxiinta madaxweynaha ee ololahooda doorashada ay ugu talagaleen gacantana lagu soo dhigo saraakiil khatar ku ah ammaanka madaxweyne Farmaajo oo la shaqeynaya golaha midowga musharaxiinta iyo xildhibaano mucaarad ku ah madaxweynaha si joogto ah baraha bulshada uga aflagaadeeya. warar soo baxaya ayaa sheegaya in bartilmaameedka Farmaajo amray in la weeraro uu yahay mid ka mid ah xarumaha ololaha ee musharax Xasan Cali Khayre iyo in weerarkaas lagu soo qabto ama lagu qaarijiyo sarkaal lagu magacaabo Ismaaciil Gurey oo Mareykanka horey loogu soo tababaray. Farmaajo wuxuu sheegay maskaxda ka dambeysa isku dabaridka ciidanka musharaxiinta iyo shaxdoodaba inuu leeyahay taliyihii hore ee Danab Ismaaciil Gurey oo Farmaajo rabitaankiisa markii horeba xilka looga qaaday isla markaana in muddo ah ku jiray xabsi. Ismaaciil Gurey oo ah sarkaal khibrad sare iyo tababaradaba ka haysta howlgelinta iyo isku dabaridka ciidamada Mareykankana lagu soo tababaray ayuu hadda Farmaajo u arkaa fallaarta kaliya ee ku taagan isla markaana dhaqdhaqaajinaya awoodda musharaxiinta madaxweynaha. weerarka waxaa loo qorsheeyay in Hotel Jazeera ciidamada marka hore ay kula wareegaan kadibna Khayre xaruntiisa la weeraro iyadoo gaashaanle Ismaaciil Gurey la bartilmaameedsanayo. General Indhacde Muuse Suudi iyo musharaxiin kale oo iyaguna ku lamaanan xildhibaanada mucaaradka ah in la weeraro ayay xogtu tilmaamaysaa oo madaxweynaha uu ogolaaday. amarka weerarkaasna waxaa bixiyay isla madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. weerarada waxaa la qorsheeyay in maalmaha soo socda ay dhacaan isla markaana waxay u badan tahay xilli habeena in la qaadi doono iyadoo arrintan ay walaac culus ku abuurtay guud ahaanba siyaasiyiinta lamana oga tallaabada ay qaadi doonaan dhammaan musharaxiinta madaxweynaha oo iminka u muuqda in waddo kasta uu ka soo xiray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waddada kaliya ee u aarsanna ay tahay in awood military ay adeegsadaan taasi oo aan la ogaan karin nooca ay noqon karto. ciidamadii lagu soo tababaray dalka Eritrea ayaa lagu waramayaa in laga soo dejiyay magaalada Muqdisho isla markaana xiisadda Muqdisho ayaa wiji cusub yeelatay. xog ay helayaan warbaahinta ayaa sheegaysa in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee tababarka ugu maqnaa dalka Eritrea lagu wado in toddobaadkan ay dib ugu soo laabtaan dalka qaarkoodna si horudhac ah loo keenay. wararku waxay intaasi ku darayaan in ciidamada Soomaaliya ee tababarka loogu diray Eritrea saacadihii la soo dhaafay soo bixitaankooda lagu diyaarinayay caasimadda Asmara ayna sugayaan markaasi amniga Muqdisho marka ay soo gaaraan caasimadda. ciidamadan oo dowladdu qorshaha ugu jirtay in si gaar ah ugu adeegsato in ay markaasi ku cabriso mucaaradka isla markaana mucaaradka horey digniin ay uga soo saareen ayaan la ogaan karin xiisadda ka taagan Muqdisho halka ay gaarsiin doonaan. ciidamadan ayaa waxaa loo badinayaa in ay noqon karaan kuwa ka daran kuwa haram cad oo iminka walaac xoogan ay ka muujinayaan guud ahaanba mucaaradka waxaana sii kordhaysa cabsida laga qabo in ay weeraro ku qaadaan xarumaha musharaxiinta madaxweynaha iyadoona ciidamadan qaarkood la sheegayay in ay ku dhinteen dagaalo ka dhacay gudaha dalka Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigreega.
diyaarado duulimaadyo caalami ah ku imaan jiray magaalada Muqdisho ayaa ku dhawaaqay inay joojiyeen duulimaadyadooda sabab la xiriirta weeraradii ka dhacay magaalada Muqdisho ee airport-ka saameynta ku yeeshay. Shirkadaha duulimaadyada ee Turkish Airlines iyo weliba Uganda Airlines ayaa ka mid ah shirkadaha ku dhawaaqay in magaalada Muqdisho aysan imaan doonin diyaaradahooda. Qoraal ka soo baxay xafiiska shirkadda Turkish Airlines oo ay helayeen warbaahinta ayaa lagu sheegay inuu baaqday duulimaadyadii diyaaradeed ee magaalooyinka Muqdisho iyo Istanbul, iyadoo lagu wargeliyay dhammaan rakaabka in la hakiyay duulimaadka. Ilaa iyo haatan ma cadda sababta loo joojiyay duulimaadyada. Maanta oo Sabti ah, diyaaradda Turkish Airlines ay ku tagi lahayd Istanbul to Muqdisho. Sidoo kale ma cadda in duulimaadyada kale ee xiga ay iyaguna hakad ku sii jiri karaan. Waxaa sidoo kale la sheegayaa in diyaaradda Ethiopian Airlines iyo Uganda Airlines ay joojiyeen duulimaadyadii maanta oo Sabti ah ay ku imaan lahaayeen Muqdisho, waxaana go'aankooda ay ku saleeyeen in qalqal uu ku jiro ammaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Ila wareegtay madax bannaan oo aan la xiriirnay ayaa sheegaya in joojinta duulimaadka ay timid markii cabsi badan ay soo wajahday kadib dagaal 48 saac ee lasoo dhaafay siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada Muqdisho, isla markaana gantaalo ama hub culculus ay ku dhaceen qaybo ka mid ah airport-ka magaalada Muqdisho. Markana xog gaara guuldarada mucaaradka ay iminka wajahayaan ayaa dad badan waxa ay ku sifeynayaan inay tahay istaraatiijiyad xumo ku dhisnayd mid military iyo mid siyaasadeed oo ay mucaaradka ku dhaqaaqeen. Shalay oo Jimco ahayd waxaa baaqday oo weliba fashil xun ku dhacay isu soo bixii ay qabanqaabinayeen guud ahaanba hoggaanka midowga musharaxiinta oo ay doonayeen in ay uga dhigaan taalada daljirka Dahsoon oo si weyn ugu dhow Villa Soomaaliya banaanbax ay ku cadeynayaan inaysan doonin dadka reer Muqdisho in madaxweyne Farmaajo Villa Soomaaliya baaqi uu ku sii ahaado. Laakiin arrintaas waxa ay noqotay mid culayskeeda wadata, waxaana jirtay in gelinkii dambe ee Khamiistii dhoolatus ay ku tageen halka loo yaqaano taalada daljirka Dahsoon mas'uuliyiin ka tirsan midowga musharaxiinta oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan labada gole oo ku dhaqaaqay in ay markaasi dhoolatuskaasi ku indheeyaan xaaladda goobta ay u qorsheeyeen in ay ka dhacdo banaanbaxda markaasi looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo. Laakiin xaaladda ayaa ka sii dartay markii Generaal Indha Cadde oo ka mid ah mas'uuliyiinta dhinaca ammaanka u qaabilsan golaha midowga musharaxiinta uu fiidnimadii tagay isaga iyo ciidankiisa aagga daljirka Dahsoon, isla markaana waraysi uu siiyey idaacad ka mid ah idaacadaha Muqdisho uu u sheegay in isaga wasiir uu ahaan jiray, isla markaana isaga iyo golaha wasiirada isku mid ay yihiin, dalka dowlad aysan ka jirin, isagana iminka uu haysto taalada daljirka Dahsoon oo sidaa aan uga fogeen masaafo ahaan halka looga arrimiyo dalkeena Villa Soomaaliya. Taasi waxay keentay in wasaaradda amniga ay u aragto in maleeshiyaad halkaasi ay yimaadeen, isla markaana ay ku dhawaaqeen in ay qabsadeen qayb ka mid ah magaalada Muqdisho. Saqdii dhexe ayaa dagaal halkaasi uu ka qarxay, ciidamadii Indha Cadde ayaana halkaasi isaga baxay. Waxaana la sheegay in marka horeba Generaal Indha Cadde uusan ka fikirin istaraatiijiyadda la xiriirta sugidda amniga goobta banaanbaxa uu ka dhacayo, maadaama ay ku hareereysan tahay Villa Soomaaliya, ciidamada militariga dowladda federaalka Soomaaliyana aagaas aad ugu badan yihiin. Sidoo kale siyaasad ahaan ayaa la sheegay in aan waqti badan la gelin u diyaargarowga banaanbaxa, maxaa yeelay Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh culays badan ayay dul saareen madaxtooyada oo waxay soo degeen Hotel Maida oo sida aan uga fogeen baraha control ee ugu horeeya ee laga ilaaliyo dhinaca Villa Soomaaliya markaad ka timaado dhinaca Shangani ama Juba oo markaasi ay adag tahay in halkaas aad ka gudubto. Labada madaxweyne waxaa sidoo kale qalqal ay kala kulmeen ciidan ka tirsan kuwa dowladda oo rasaas ku furay hoteelka, isla markaana ay sheegeen in ay isku day dil ka badbaadeen. Dhammaan marka la isku soo xooriyo waxaa mucaaradka lagu eedeynayaa in ay fududaadeen, isla markaana xitaa haddii banaanbax ay qabanayaan ay ahayd goobo kale oo fagaara ah oo laga heli karo magaalada Muqdisho inay ku iclaamiyaan oo aysan ku iclaamin bartan muhiimka ah ee taalada daljirka Dahsoon oo toddobaadyo ka hor uu ka dhacay banaanbax lagu taageerayay 13 kursi ee madaxweyne Farmaajo qalinka uu ku duugay.
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Finish kama uusan hadlin xaaladda. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble wuxuu ka hadlay xaaladda isagoo sheegay 2021 iyadoo lagu jiro in nasiib darro ay tahay in shakhsi uu sheegto in dowlad dalka aysan ka jirin isla markaana qayb ka mid ah caasimadda uu haysto. Wuxuuna sidoo kale ku eedeeyay mucaaradka inay ciidankooda weerareen ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya ciidankana ay isdifaaceen. guuldarooyinka ay wajahayaan mucaaradka sidee ayay uga soo kabsan doonaan waa su'aasha taagan, waxaana hubaal ah inay ku maqan yihiin abaabul aad u xooggan. xildhibaan Cabdulaahi Goodax Barre wasiirkii hore ee waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo lala tiigsan karo maxkamad marka la eego wixii jimcihii ka dhacay magaalada Muqdisho. wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee ka taagan magaalada Muqdisho kadib markii iskahorimaad hubeysan uu dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa musharaxiinta. Goodax Barre ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay dhacdadii ka dhacday magaalada Muqdisho ee lagu weeraray madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed oo ku sugnaa hotelka Maida ex Naasa Hablood 2 oo u dhow daljirka Dahsoon. waxa uu ku taliyay in laga fiirsado tallaabada aan la xakameyn karin natiijadeeda, isagoona sheegay in Farmaajo uu yahay madaxweyne xilligiisu dhammaaday isla markaana ay tahay inuusan bixin amaro lagu howlgelinayo ciidamada oo laga yaabo in ay dad ku dhintaan. waxaan aad uga xumahay wixii ka dhacay magaalada Muqdisho. waxaan ku talinayaa in laga fiirsado tallaabada aan la xakameyn karin natiijadeeda. waxaan Farmaajo ku baraarujinayaa inuu yahay madaxweyne xilligiisu dhammaaday ayna tahay inuusan bixin amaro howlgelin ciidan oo laga yaabo in dad ay ku dhintaan, ayuu yidhi. waxa uu intaasi ku daray, waxaan ku mutaysan kartaa Farmaajo in lagu saaro maxkamad military marka la eego wixii dhacay. Soomaaliya diyaar uma ahan dagaal sukeeye ee nabadda ha laga wada shaqeeyo, ayuu hadalkiisa ku sii daray. Goodax Barre ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in Soomaaliya aysan xilligan diyaar u ahayn inay gasho dagaal sukeeye, wuxuuna ugu baaqay inay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo horumarka iyo nabadda dalka. hadalkan ayaa imaanaya xilli magaalada Muqdisho 48 saac ee aynu kasoo gudubnay ay wajahaysay xaalado adag oo dhinaca ammaanka ah. musharaxiinta ayaa laga adkaaday kuwa oo hareeraha madaxtooyada ku sugnaa. warkii caalamka waa naga intaa. waad ku mahadsan tahay daawashada warkeena. muuqaalkan haddii aad dhamaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale. mahadsanid.